Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa dhacdo la yaab leh oo ka dhacda waddanka Mareykanka qarnigii la soo dhaafay. Waxaan hubaa dhacdadan haddii dadka riwaayadaha iyo sheekooyinka qora ay isku dayaan inay qoraan mid la mid ah inay ku adkaan doonto inay qoraan mid la mid ah. Laakiin intaana muuqaalkeena u gelin haddii ay tahay markii ugu horreysay oo soo booqato channelka halmaama inaad subscribe saarto, like to muhiim siina share garay oo asxaabtaada la wadaag aan u galno muuqaalkeena maanta. Dhacdadan la yaabka leh waxay ka dhacday magaalo yar oo lagu magacaabo Townsend oo ku taalla gobolka Massachusetts, Mareykanka. Waxay dhacday sanadkii 1986. Waxay ku dhacday qoys lagu magacaabo reer Andros. Reer Andros waxay ka koobnaayeen 4 qofood. Aabbo lagu magacaabo Brian Andros, hooyo lagu magacaabo Deborah Andros, iyo 2 gabdhood oo ay dhaleen oo lagu kala magacaabo Annie Andros oo 15 jir ahayd iyo Jessica Andros oo 12 jir ahayd. Isla sanadka 1986 waxaa geeriyootay hooyada lagu magacaabo Deborah Andros waxayna u geeriyootay cudurka kansarka. Geeridooduna waxay murugo ku reebtay qoyska gaar ahaan labadeeda gabdhood Annie iyo Jessica. Laakiin muddo kadib, noloshu waxay isaga soo laabanaysay si caadi ah si tartiib tartiib ah. Maalin maalmaha ka mid ah dhowr isbuuc kadib geerida hooyadood, 2 gabdhood ee lagu kala magacaabo Jessica iyo Annie iyagoo si degan qolkooda isaga dhex fadhiya iskana akhrisanaya casharradii iskuulka. Hal mar si lama filaan ah waxay ku tiri gabadhii yarayd Jessica walaasheed ka weyneyd Annie, wax ma maqashay? Waxay ku tiri Annie may waxba ma maqal. Waxay ku tiri Jessica aamus wax yar aan dhegaysano. Wax yar kadib waxay dhag dhag sida albaab la garaacayo oo kale ka maqleen derbiga. Isla markiiba waxay isweydiiyeen xaguu ka yimid codka. Annie ayaa waxay ku tiri waxaa laga yaabaa in wax derbiga ku socda ay yihiin sida dooli oo kale. Intii aysan dhammaysan jumladeeda, codka 2 garaac kale oo ka xoog badan kii hore ayaa ka soo yeeray derbiga. Gabdhihiina cabsi darteed ayay orod kaga soo baxeen qolka waxayna u soo carareen dhanka aabahood. Aabahood wuxuu fadhiyay daashka guriga. Markii ay aabahood la wadaageen arrinka, wuxuu go'aansaday inuu qolka u raaco arrinkana isaga shakhsi ahaan uu soo hubsado. Markii uu qolka tagay laakiin wax coda ma uusan maqal. Muddo ayuu sugay ku dhow nus saac, wax codana waa u maqli waayay. Qolkii ayuu isaga soo tagay wuxuuna ku yiri gabdhihiisa haddii mar kale aa codka maqashaan isoo waca. Gabdhihiina qolkooda ayay isaga laabteen si degan ayayna isaga fariisteen. Wax coda oo dambana ma aysan maqal ilaa laga gaaro galabkii. Galabkii markii la gaaray codka haddana mar kale ayuu soo laabtay oo derbiga la soo garaacay. Isla markiiba waxay la wadaageen arrinka mar kale aabahood. Aabahoodna wuxuu yimid qolka. Laakiin sidii hore oo kale, codku waa uu joogsaday markii uu aabuhu qolka yimid. Laakiin aabahood tookadan wuxuu u maleynayay inay ku ciyaarayaan, wuxuuna ku yiri ciyaarta iga dhaafa. Gabdhihiisa way u dhaarteen inaysan ku ciyaarayn, ayna maqleen codkana maqleen derbiga. Codkuna uu joogsaday markii isaga uu qolka yimid. Laakiin aabahood ma uusan rumaysan, wuuna isaga tagay qolka. Intaa wixii ka dambeeyay garaaca derbiga gabdhuhu si maalinlaha ay u maqli jireen. Maalin maalmaha ka mid ah 2 gabdhood iyagoo ka wada hadlaya arrinka, waxaa ku soo dhacay gabadha weyn Annie arrin la yaab leh. Waxay ku tiri walaasheed soo lagama yaabo waxa derbiga soo garaaca maalin walba inay tahay ruuxda hooyadeenii dhimatay. Waxay ku tiri Jessica walaasheed Annie maxaa ka wadaa? Waxay ku tiri waxaan horay u maqlay in ruuxda dadka dhintay ay marmarka qaar dib u soo laabato iskuna daydo inay la xiriirto dadkeedii. Waxay ku tiri Jessica sideen ku ogaanaynaa in ruuxda hooyadan ay tahay waxa derbiga gargaraaca? Annie waxay ku tiri waxaan sugaynaa ilaa ay mar kale ka soo laabato gargaraaca waxaana weydiinaynaa markaan su'aalo. Markii la gaaray galabkii, garaacii mar kale ayuu soo noqday. Waxayna weydiiday Annie hooyadeen miyaa tahay? Laakiin garaacii waa uu joogsaday markii ay su'aashaas weydiiday. Derbiga ayay u soo dhawaatay Annie waxayna ku tiri hal mar garaac derbiga haddii jawaabtu maya tahay, 2 marna garaac derbiga haddii jawaabtu haa tahay. Mana filan kartid wixii ay dareemeen 2 gabdhood markii derbiga 2 mar la gargaraacay taasoo jawaabtu tahay haa. Sidaas ayayna isaga dhaadhiciyeen in waxa derbiga u soo gargaraaca maalin kasta ay tahay ruuxda hooyadood. Intaa kadib waxay bilaabeen 2 gabdhood inay hooyadood su'aalo weydiiyaan maalin walba. Ugu yaraan waa sidii aaminsanaayeen. Muddo kadib waxay arrinka la wadaageen aabahood. Aabahood isagu wuxuu iska dhaadhiciyay in murugada ay ku reebtay geerida hooyadood darteed ay sheekooyinkan u alifayaan. Marna ma uusan aaminsanayn waxa ay sheegayaan labadiisa gabdhood. Maalmihii xigay gabdhuhu waxay iska sii wateen inay derbigooda la sheekaystaan. Qaabka jawaabtuna wuxuu ahaa sidaan idin soo sheegay. Hal mar derbiga haddii la garaaco waa maya, 2 jeer haddii la garaacana waa haa. Dhanka kale aabahood wuxuu dareemay in guriga xoogaa isbeddel ka jiro.
Wuxuu ka tagaa guriga iyadoo alaab uu meel ku ogyahay. Marka uu soo laabtana wuxuu ugu yimaadaa alaabta iyadoo meel kala taala. Tusaale ahaan, kursi uu ku ogaa daashka guriga wuxuu uga imaanayaa markii uu soo laabtay jikada, ama remote-ka TV-ga uu ku ogaa qolka fadhiga wuxuu uga imaanayaa markuu soo laabto musqusha. Wuxuu ka shakiyay aabahood in arrinkan gabdhihiisu ay sameynayaan, iyagoo isku daya in aabahood ay ku qanciyaan in ruuxda hooyadood guriga ay ku jirto, waxaana iyadu ay sameynayso. Derbiga waxa soo gargaraacana ay iyadu tahay. Markii uu arrinka gabdhihiisa la wadaagay oo ula tagayna, gabdhihiisu way iska inkireen in waxan ay sameeyaan. Dhanka kale, gabdhaha ayaga naftirkoodu waxay ka shakiyeen in waxa maalin walba ay derbiga kala hadlaan aysan ahayn ruuxda hooyadood. Sababtuna waxay ahayd garaaca derbiga oo ku batay. Garaaca derbigu xataa waxaa la garaaci jiray habeenkii saq dhexe oo hurdada ayuu u diiday. Haddii isku dayaan inay yiraahdaan naga joojina, waa ay kusii kordhayday. Waxay iska dhaadhiciyeen in haddii hooyadood ay tahay, garaaca ay ka jooji lahayd iyo dhibaatada, oo habeenkii ugu yaraan ay ka seexan kari lahaayeen. Waxayna aamineen inay tahay ruux shaydaan oo iska dhigayda inay tahay ruuxda hooyadood. Maalin maalmaha ka mid ah, xilli aabahood uu guriga ka maqnaa, shaqana uu ku maqnaa, iyaga keligoodna ay guriga joogeen, waxay maqleen garaaca derbiga mar kale. Laakiin markaan garaaca derbigu kama uusan yeerin qolkooda, wuxuu ka yeerayay qaybta hoose ee guriga. Markii muddo la garaacayay, markii hore ma aysan aadin iyagoo ay ka cabsadeen. Laakiin markii garaacu uu joogsan waayay, waxay aadeen qaybta hoose ee guriga, iyagoo xoogaa geesnimo iska raadiyay. Markii ay qaybta hoose iridka fureen, Annie ayaa waxay shiday nalka. Nalka markii ay shidana, waxay arkeen qoraal far waaweyn ku qoran, kalar guduudanna ku qoran oo derbiga ku qoran. Qoraalkaasna wuxuu ahaa I am in your room, come find me. Taasoo micnaheedu yahay waxaan ku jiraa qolkiina, kaalaya isoo hela. Gabdhihii markay qoraalka arkeen cabsi darteed waxay orod kaga baxeen qaybta hoose ee guriga, waxayna sidoo kale orod kaga baxeen guriga oo dhan, iyagoo tagay guriga deriska. Markii ay deriska arrinka la wadaageenna, derisku arrinka waa ay fahmi waayeen, waxayna la sugeen gabdhaha ilaa aabahood ka soo laabto. Aabahood markii uu galabkii soo laabtay, derisku waxay la wadaageen arrinkii. Aabahood isla markiiba wuxuu u maleeyay in gabdhihiisu ay sheekooyinkii hore soo celiyeen. Waa uu soo waday kadibna waxa uu keenay guriga. Wuxuu ku yidhi gabdhihiisa, dhegaysta, guriga aniga ayaa baarayo, waxaana idin xaqiijinayaa in waxa aad sheegaysaan waxba aysan ka jirin, guriga waxa ku jirana aysan jirin. Wuxuu ka bilaabay isla markiiba qaybta hoose ee guriga. Dabcan waa uu helay qoraalkii ay gabdhuhu u sheegeen. Markii uu qoraalka ka soo ag dhowaaday, gacanta ayuu ku tiray, wuxuuna arkay inuu kajab ku qoran yahay. Waxa u yeelay kalarka guduudka ahna wuxuu ahaa kajabka. Intaa kadib wuxuu iska sii watay baaritaankiisa, wuxuuna aaday qaybta kore ee guriga. Wuxuu tagay qolkii gabdhaha. Markii uu iridda furay, halkaa waxaa ku sugayday arrin lama filaan ah. Wuxuu arkay qof taagan bartamaha qolka gabdhaha, wuxuuna watay maro ay lahayd xaaskii hore oo ay ka geeriyootay Brian. Sidoo kalena wuxuu gacanta ku haystay faas. Qofkii isla markiiba wuxuu soo fiiriyay dhanka Brian, waxaana wejiga u marsanaa makeup, qaybta hoosena caddaan, qaybta korena madow. Sidoo kale waxaa madaxa u saaraa tintaasoo buruka kalarkeedu dahabi yahay. Qofkii isla markiiba wuxuu ku soo orday Brian. Brianna wuxuu orod kaga baxay guriga. Brianna waa aabbaha. Markii uu orod kaga baxay guriga, sidoo kale wuxuu sii watay labadiisa gabdhood. Qofkiina kama uusan soo daba bixin Brian, mana uusan kasoo daba degin. Isla markiiba Brian wuxuu la xiriiray booliska. Booliskana waxay imaadeen guriga. Gurigii ayay baaritaan kor iyo hoose ku sameeyeen, waxayna qaybta hoose ee guriga ka soo heleen qofkii timaha u saaraayeen, wejigana kalarka u marsanaa, faaskana watay. Wuxuuna noqday qofkaas wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Daniel LaPlante. Daniel LaPlante wuxuu dhashay sanadkii 1970, wuxuuna ku dhashay isla magaaladaas Townsend ee gobolka Massachusetts. Yaraantiisii waxay ahayd noloshiisu mid iska adag. Markii uu soo yaro weynaaday, wuxuu bilaabay tuuganimo. Waxyaabihii marmarka qaar uu sameyn jiray markii uu guryaha dadka u boodo waxaa ka mid ahaa inuu alaabaha dadka kala warwareejiyo, isagoo waxba ka xadinna uu guriga ka baxo. Intaasna wuxuu ka rabay in dadkii guriga deganaa markii ay ku soo laabtaan ay cabsi dareemaan markii alaabtii oo kala warwareegsan ay arkaan. Guriga Brianna isaga ayaa alaabta kala warwareeji jiray. Sidoo kalena qofka derbiga ku jiray oo derbiga soo gargaraaci jirana wuxuu ahaa isaga. Laakiin siduu waxaan oo dhan ku sameeyay? Waxaasoo dhan waxaan ogaan karnaa markii sheekadiisa aan ogaano. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo jidka socda, wuxuu arkay gabar da'diisa oo kale ah, wuuna ka helay, wuxuuna u daba kacay gurigooda. Gurigooduna wuxuu ahaa guriga reer Andros. Gabadhuna waxay ahayd Annie Andros, gabadha weyn ee Brian Andros. Maalinkii xigay markii guriga ay ka kala tageen, gabdhuhuna iskoolka aadeen, aabahoodna uu shaqada aaday, wuxuu u booday guriga.
Gurigaasna markii uu galay wuxuu ka soo ogaaday magacyada gabdhaha, da'dooda iyo nambarka guriga. Dhowr maalin kadib uu guriga indhaha ku hayay, wuxuu soo wacay guriga. Markii uu ogaaday in aabbuhu uu guriga ka tagay, gabdhaha oo keliyana ay guriga joogaan. Taleefanka waxaa ka qabatay gabadha weyn ee lagu magacaabo Annie. Gabadha wuxuu u sheegay magaciisa, sidoo kalena wuxuu u sheegay in nambarka gurigooda uu ka soo qaatay qof ay wax isla bartaan. Sidoo kale wuxuu u sheegay inuu ka helay, doonayana inay isbartaan. Maalmihii xigay maalinkaas, maalin walba taleefanka ayay iskala hadli jireen isaga iyo Annie, waqti badan ayay ku qaadan jireen. Maalin maalmaha ka midana waxay go'aansadeen inay wada kulmaan. Maalinkii ay wada kulmeen muddo hal saac camal ah ayay soo sheekaysteen, waxay ku soo socsocdeen magaalada. Markii ay soo laabteenna, Annie kama aanay helin ninkan lagu magacaabo Daniel. Markii ay guriga ku soo laabatay wixii ka dambeeyana, dib dambe ulama aysan kulmin, taleefankana kama aysan qaban jirin. Isna wuxuu ogaaday Daniel in gabadhu aysan rabin maadaama aysan taleefan ka qabanayn. Maalin maalmaha ka mid ah markii ay guriga ka tageenna, wuxuu u soo booday guriga. Gurigana maalinkan wuxuu u baaray si fiican. Wuxuu arkay markii uu galay qolka gabdhaha in qayb ka mid ah derbiga uu ka jilicsan yahay qaybaha kale ee derbiga. Waxaa ku aadanay derbigaas armaajo. Kadibna wuxuu iska wareejiyay armaajadii wuxuuna ka qoday god. Gudaha ayuuna u galay. Derbiguna gudaha waa isaga furnaa sababtoo ah guriga wuxuu ahaa alwaax. Sidoo kale intuu ka soo baxay ayuu wuxuu soo qaatay faas. Derbiga gudaha meelihii kala xiraa ayuuna isku furay, wuxuuna ka dhigtay wadooyin uu dhex maro. Sidoo kale wuxuu tagay qaybta hoose ee guriga, wuxuuna arkay meel luuqa oo lagu dhuuman karo. Wuxuu soo qaatay firaash, wuxuuna dhigtay meeshii. Alaab yaryar ayuuna isku aadiyay, meeshaas ayuuna degay. Wuxuu samayn jiray markii ay guriga ka baxaan, isaguna meesha hoose ee guriga ama qaybta hoose ee guriga ayuu ka soo bixi jiray. Kadibna waxa uu ka geli jiray derbiga meeshii uu ka dalooliyay, armaajada ayuuna isku aadi jiray. Markii gabdhaha ay iskoolka ka soo laabtaanna, derbiga gudaha ayuu ka soo gargaraaci jiray. Qofka hooyadood iska dhigi jiray oo derbiga garaaci jirana wuxuu ahaa isaga. Markii mar kale ay seexdaan ama ay baxaanna, mar kale ayuu derbiga ka soo bixi jiray, qaybtiisii hoose ayuuna ku laaban jiray. Marmarka qaarna markii ay guriga dhan ka baxaan, ayuu guriga dhex warwareegi jiray. Marmarka qaar guriga oo dhan banaanka ayuu kaga bixi jiray, laakiin waqtigiisa inta ugu badan guriga gudihiisa, qaybta hoose iyo derbiyada dhexdooda ayuu ku qaadan jiray. Markii ay dhacday arrinkii aan idiin soo sheegay oo ah inuu ka soo baxay, kadibna uu guriga dhexdiisa istaagay. Markii hore wuxuu filayay in gabdhuhu ay u imaan doonaan marka ay qoraalka soo akhriyaan, laakiin siduu filayay ma noqonay, aabihii ayaa u imaaday. Kadibna waatuu booliska ugu yeeray oo la xiray. Daniel waxaa lagu xukumay 1 sano oo xabsi ah, waxaana lagu xiray xabsiga dhalinyarada ka yar da'dooda 18 maadaama xilligaa 16 jir uu ahaa. 1 sano kadib sanadkii 1987 waa la soo daayay. Markii la soo daayay, Daniel shaqadiisii tuuganimada ayuu ku laabtay, markaana wuxuu helay bistoolad si uu ka helaba. Muddo kadibna wuxuu dilay hooyo uur leh iyo 2 cunug ay dhashay. Isla markiibana booliska kuma aysan adkaan inay aqoonsadaan qofka faamilkaas ama qoyskaas dilay inuu yahay Daniel, maadaama meel kasta uu fara kaga tegay. Isla markiina waa ay soo qabteen, waxaana lagu xukumay 1 sano kadib sanadkii 1988 xabsi daa'in. Ilaa haddana wuxuu ku jiraa xabsiga. 2019 ayuu mar isku dayay inuu racfaan qaato oo cafis uu dalbado, laakiin maxkamaddu waa ay ka diiday, wuxuuna ku sii jiri doonaa noloshiisa inta ka dhiman xabsiga. Muuqaalkeenii maanta aan kaga hadlaynay dhacdada la yaab kalena intaa ayay ku eg tahay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegay Ammaan Allah.